madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Sudan Umar Xasan al-Bashir ayaa kulan gaar ah ku yeeshay xarunta madaxtooyada magaalada Khartoum ee wadankaasi. labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka dawladahooda iyagoo ku heshiiyay dhismaha guddi heer wasiir ah oo ka shaqeyn doona arrimaha ay ku heshiiyeen. iskaashiga labada dal oo ay xoojinayaan waxaa ka mid ah dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha, ganacsiga, amniga, isdhexgalka bulshada, waxbarashada iyo tayeynta laamaha dawladnimo ee Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweyne al-Bashir iyo shacabka dawladda Sudan uga mahadceliyay sida ay u garab istaagan yihiin Soomaaliya xilligii burburka ilaa iyo waqtigan la joogo, isagoo ka codsaday inay sii wadaan taageeradaas ay dadka Soomaaliyeed u muujinayaan. waxa uu intaa ku daray in Soomaaliya ay sanadkan ka dhacayaan doorashooyin, taasina ay ka marakacayso horumarka laga sameynayo dhanka dawlad dhisidda Soomaaliya, baahinta maamulka iyo in shacabku yeesho codka ay ku soo dooranayaan hogaankooda. madaxweyne al-Bashir ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarka ay Soomaaliya ku talaabsanayso, isagoo sheegay in Sudan ay taageeradeeda Soomaaliya sii wadayso ilaa ay Soomaaliya dib cageeda isugu soo taagto. waxa uu sheegay inuu ku rajo weyn yahay in dhowaan uu arko Soomaaliya oo si buuxda amnigeeda ula wareegta, taasina ay dhabada u xaari doonto horumarka hadda Soomaaliya ka socda. labada madaxweyne ayaa sidoo kale xuseen ay doonayaan in labadooda dal ay tusaale u noqdaan qaaradda Afrika kana shaqeeyaan horumarka iyo xasiloonida amniga. dhinaca kale waxaa heshiiskaasi magaalada Khartoum ku kala siixday wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee wadanka Sudan. madaxweyne Xasan ayaa Sudan maalmo sii joogi doona sida ay xaqiijisay madaxtooyada Soomaaliya. Cabdinaasir Maxamed Cali, Cable TV, magaalada